Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhowaada xormadlayaal. Maanta waxaan ka hadlaynaa buugga yaalla miis kasta oo dagaal. Buuggan waxaa lagu magacaabaa The Art of War. Ninkii af Soomaaliga ka dhigayna waxa uu ugu magacaabay Loolal. Laakiin aniga waxaan dhihi lahaa xeeladaha dagaalka. Bal ka warran buuggan oo dhan haddii 10 daqiiqo kaliya aan kugu soo koobo waxa uu ka hadlayo oo dhan. Sidaas daraaddeedna aan kaaga dhigo inaad buuggan oo dhanba wada akhrisay iyadoo 10 daqiiqo kaliya oo ay kaa baxday. Buugga Lolan waa mid ka mid ah buugaagta ugu caansan dunida. The Art of War waxaa qoray xeeldheere dhanka Shiinaha u dhashay oo lagu magacaabo Sun Tzu. Inkastoo buuggan la qoray waqti hore, haddana asal ahaan waxa uu ka hadlayaa xeeladaha dagaalka. Casharadiisa maanta waxaa laga adeegsadaa ganacsiga, siyaasadda, hoggaaminta iyo nolosha guud. Laakiin buuggan waxa uu yaallaa miis kasta oo dagaal, taas oo dad badan ku dhalisay dood ah inuu yahayba dagaal ooge. Inkastoo shirkadda gacanta ku haysa daabacaadiisa ay arrintaas gaashaanka u daruurtay ayna ku tilmaantay borobagando. Waxa ay tilmaantay shirkaddu in buuggan uu yahay keliya xeeladaha qofku inuu barto, sababtoo ah askartaba waxaa la baraa sida ay dagaalada ugu guulaysan lahaayeen. Fikradda ugu weyn ee buugga waa in guusha dhabtaha aysan ku imaan xoogga oo kaliya. Haddii aad aaminsan tahay in askar badan soo wadatay oo xoog wax ku helaysid, waxaa jira xal kale oo kaas ku muhiimsan, balse ay ku timaado qorshe, xog, dulqaad iyo fahamka qofka kula dagaalamaya ama qofka kula loolamaya. Sun Tzu waxa uu leeyahay dagaalka ugu wanaagsan waa kan lagu guulaysto iyadoo khasaarahaba uusan dhicinba ama khasaaro uu aad u yar yahay. Bal ka warran haddii dagaalka ugu wanaagsan buu yahay inaad guulaysatay iyadoo dagaalku uusan dhicin. Buuggu wuxuu ku bilaabmaa muhiimadda qorshaynta. Qof kasta oo doonaya inuu guulaysto waa inuu marka horeba qiimeeyaa xaaladda, awooddiisa, caqabadaha jira iyo awoodda cidda uu la tartamayo. Qorshe la'aan waxay Sun Tzu u arkaa awood toos ah oo u diyaarsan inay guul daraysato. Sidaa daraaddeed qorshuhu waa qodobka ugu muhiimsan ee buuggan uu ka hadlayo. Sababtoo ah haddii aadan lahayn ama aadan doonayn qorshe wanaagsan, waxaad u badan tahay inaad guul daraysatid. Sidaa daraaddeed marka horeba qiimee awooddaada iyo caqabadaha iyo cidda aad la tartamayso. Markaad qodobkaas meel dhigatid, hore u soo soco. Cashar kale oo muhiim ah ayaa ah in qofku isagu is-yaqaan. Haddiiba aadan is-aqoon inaad tahay, waxa aad ku fiican tahay iyo sida aad u shaqaysid iyo cidda aad la shaqayn kartid, maxaad noqon kartaa baa is leedahay. Waa su'aal kale oo muhiim ah, bal adigu inooga jawaab. Sun Tzu waxa uu yidhi macnaha guud, haddii aad taqaan naftaada iyo cidda kula loolamaysa, ma baqaysid, sidoo kalena kama baqaysid natiijada dagaalo badan. Haddii aad taqaan naftaada oo kali ah, marna waad guulaysanaysaa, marna waad guuldaraysanaysaa. Laakiin haddii labadoodaba aad wada taqaano, waxay u badan tahay inaadan cabsan oo aad guulaysato. Marka haddii aan soo koobo waxay tahay, haddii aad taqaan naftaada iyo cidda kula loolamaysa nafteedaba aad fahamsan tahay, marna ma baqaysid. Haddii taada kaliya aad taqaanin, waxay u badan tahay inaad guulaysatid ama aad guul daraysatid. Adi ayay kugu xiran tahay taasi. Haddii aadan midna aqoon, guuldarradu aad ayay kugu dhowdahay. Fikraddani waxay qusaysaa ganacsiga, siyaasadda, dagaalada iyo nolosha shakhsiga intaba. Hal meel bes lagama eegi karo ama laguma salay karo. Buuggu waxa uu sidoo kale xoogga saaraa xogta iyo sirdoonka. Go'aan kasta oo weyn waa inuu ku dhisnaadaa xog sax ah. Hoggaamiyaha ugu wanaagsan ma dhaqaaqo isagoo mala awaal ku socda, balse waxa uu aruursadaa macluumaad ku filan ka hor inta uusan tilaabo qaadin. Sidaa daraaddeed, tilaabo kasta inta aad qaadin waxaad u baahan tahay macluumaad. Haddii aad doonaysid inaad ganacsi bilowdid oo inaad ganacsiga aad bilaabayso aad ka haysaa macluumaad ballaaran oo ku saabsan qaabka uu u shaqeeyo ganacsiyada kale ee kula midka ah ee magaalada ka jira. Haddii aad doonaysid inaad furtid meel lagu barto maadooyinka luqadaha, waxaa muhiim ah inaad marka horeba soo ogaatid iskuullada luqadaha waxaad uga fiicnaan kartid, lacagaha ay qaadaan, sida ay wax u maamulaan, tirada ardayda dhigata, manaahijta ay baraan, waa intaas waa inaad ogaataa. Sun Tzu wuxa uu aaminsan yahay in dabacsanaantu ay tahay furaha guusha.
sida biyuhu ula qabsadaan meesha ay marayaan. Qofka guulaystaana waa kan ugu awood u leh inuu la qabsado xaaladaha isbeddelaya. Qofka ku dheggan hal qorshe mar walba wuxuu halis ugu jiraa inuu fashilmo marka xaaladdu isbeddesho. Marka qodobkan waxa ugu muhiimsan waxa waaye mar walba waxa isbedbeddela xaaladaha. Tusaale, ganacsi weyn baa haysatay oo ku saabsanaa caafimaadka. COVID-19 baa yimid, waad ogeyd sida adduunka isku beddeshay. Sidaa daraaddeed isla markii waxa lagaa rabay dhakhtarkaas inuu u guuro online, maadaama dadkii aysan xaruntiisa soo gaari karin, sidoo kalena aan la isku imaan karin. Goob dadku fayl weyn u galaan ayuu lahaa nin ganacsada ah oo saaxiibkay ah, oo runtii dadku saacado badan ay fadhi jireen oo fayl badan loo geli jiray. Laakiin COVID-19 markuu yimid, isla markii waxaa dhacday in dadkii faylka ay ka kala carareen, cid u timaadana waayey. Laakiin waxa uu ku guuldareystay inuu isla markiiba uu sameeyo delivery, isla markaana dadka uu guryahooda ugu geeyo. Marka markasta oo xaaladdu ay isbeddesho, ma ahan inaad sugtid xaaladda isbeddeshay inta ay ka soo fiicnaanayso. Go'aanka ugu weyn waxay tahay xaaladda isbeddeshay inaad isla markiiba la qabsato oo aad hore u socoto. Sababtoo ah haddii aad la qabsan weydid, macnaheedu waxay tahay inaad guul darraysanayso. Qodob kale oo muhiim ah, buugga waxa uu ka digayaa xanaaqa iyo degdegga. Hogaamiye ama qof go'aan qaadanaya waa inuusan ku dhaqaaqin caro, cabsi iyo kibir. Dareenka aan la xakameyn karin wuxuu dhaawacaa garashada, wuxuuna horseedi karaa qaladaad waaweyn. Cashir kale oo qiimo leh ayaa ah in fursadaha la abuuro. Dad badan waxay sugaan fursad, laakiin Santiago waxa uu sheegayaa in guulaystayaasha ay abuuraan xaaladaha guusha. Waxay diyaariyaan qorshe, waxay sameeyaan jawi ay guusha ugu dhowdahay guuldarrada. Marka muhiimadda weyn waxa waaye cashirkan ku jirtaa mar walba waa inaad adiga fursadda abuurtaa. Markastoo aad fursadda abuurto wax kuu dhow guusha, waxaadna diyaarinaysaa qorsho guusha kusii dhaweey kara. Laakiin haddaad fursad aad sugtid, waxay u badan tahay inaad percentage yar oo 1%, 5%, 6% fursaddu in isaa kaa timaado. Marka mar walba markaa fursadda abuurtid ayay fursaddu isku beddeshaa fursad, sida ay aaminsan yihiin khuburada, gaar ahaan buuggan. Dhammaadka buuggana fariinta ugu weyni waa guushu ma ahan inaad qof kale ka xoog badan tahay. Guushu waa inaad ka xeelad badan tahay, ka qorshaysan tahay, kana xog badan tahay. Qofka fahma naftiisa, qorsheeya tillaabooyinkiisa, fahma dadka kale, isla markaana la qabsada isbeddelada ayaa ugu dambeyntii guulaysta. Waa inaad taas fahantaa. Hal jumlad oo buugga oo dhanba soo koobaysa. Buugga loolan ee maanta dhan kaga sheekeynaya, hal jawaab oo kali ah ama hal qodob oo kali ayaa soo koobaya. Waxaana la yidhaahdaa qodobkaas, dagaalka ugu fiican waa kan lagu guulaysto ka hor inta uusan bilaabanba. Dagaalka ugu fiican waa kan lagu guulaysto ka hor inta uusan dagaalku bilaaban. Sidaa daraaddeed, sirta guusha, dagaalada, ganacsiga iyo nolosha intaba waa inaad ka fakartaa inta aadan gelin waxaas qorshe, nidaam iyo xog badan inaad heshid si aad hore ugu socotid. Intaas ayaan ku soo koobaynaa maantay buugga la yidhaahdo xeeladaha dagaalka ama Art of War, ama Soomaalidu ay ugu magacowdo loolan ama xeeladaha dagaalka. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan muuqaalkan sii gaarsiiya asxaabtaada kale si ay uga faa'iidaystaan. Sidoo kale nagu soo biir, sababtoo ah waxaan kaloo soo wadnaa buugaag kale oo qiimo leh oo sidaan oo kale wax ka yar 10 daqiiqo aan kugu soo koobi doono. Buug haddii uu jiro aad jeceshahay inaan sidaan oo kale u soo koobno, fadlan noo soo qor. Mahadsanid.